Waxaa muddooyinkani dambe hakad weyn ku jiray horyaalka kubadda cagta ee gabdhaha dalkeena Soomaaliya. Kulanka ugu dambeeyay ayaa baaqday maalintii Jimcaha roob da'ay awgeed. Kulanka u dhexeeyay kooxaha Hegan iyo Horseed ee kubadda cagta ee gabdhaha dalkeena Soomaaliya. Kulankan ayaa waxaa la ciyaari doonaa maalinta Berito oo Isniin ay tahay, waxaana la filayaa kulankan in labada kooxoodba ay soo bandhigaan ciyaar aad u sareysa oo taageerayaasha ay qanciyaan. Kulankii hore ee baaqday waxaa isugu yimid taageerayaal aad u fara badan oo labada kooxoodba kala taageerayay kulankaas oo la sugayay natiijada kasoo bixi karta cidda koobka qaadi doonta. Haddii ay Horseed badin lahayd, koobka ayay qaadi lahayd. Haddii Hegan ay badiso, sidoo kalena waxay noqon lahayd in kulankaasi la isku celiyo. Laakiin kulankaasi ma noqon mid waqtigii loogu talagalay in la ciyaaro. Gebi ahaanba ciyaarta ayaana la ciyaarin roob da'ay awgeed, waxaana la go'aamiyay in maalinta Berito si rasmi ah loo ciyaaro kulankan u dhexeeya kooxaha gabdhaha Horseed iyo sidoo kale kooxda gabdhaha Hegan. Waana kulankii ugu dambeeyay ee horyaalka lagu soo afmeerayay. Kulankii ugu dambeeyay waxaa wada ciyaaray kooxaha Madbacadda iyo sidoo kale kooxda MMC, sidaasina ay kaalinta saddexaad ku heshay kooxda MMC. Kaalinta afraadna waxaa gashay kooxda kubadda cagta ee Madbacadda, iyadoona kulankan uu ahaa kulan aad u xiiso badan, labada kooxoodba ay soo bandhigeen. Haddii aan dib u eegno kulanka Berito, labada kooxood waxa ay sameeyeen diyaargarow ugu dambeeyay, iyagoona ay isku diyaariyeen xil ciyaareedkan. Kooxda Horseed ayaa difaacanaysa horyaalka kubadda cagta ee gabdhaha ee dalkeena Soomaaliya sanadan. Waxay doonaysaa in mar kale gacanta ku dhigto koobkan si ay guul ugu gaarto dhigeeda Horseed. Sidoo kale Hegan ayaan muddooyinkii ugu dambeeyay wax koob aan arkin, ayaa doonaysa inay moralkeeda soo ceshato dhanka koobka, oo ay doonayso sanadkan inay ka go'an tahay in ay guul gaarto. Labada kooxood kulankii ay ciyaareen dhammaan horyaalka, kulamada ay ciyaareen ayaan eegi doonaa natiijada kooxda Horseed ay wadatay. Kooxda Horseed ayaa wejiga hore ee horyaalka la ciyaartay dhigeeda Hegan, taasoo ay guul weyn ka soo gaartay, waxayna sidaasi kaga horeysaa hal badis oo kaliya iyo 3 dhibcood oo ay heshay kooxda gabdhaha Horseed. Kooxda Hegan iyadana dhammaan kooxaha la ciyaartay Madbacadda iyo MMC dhammaan waxa ay ka wada qaadatay dhibcahooda oo kaliya. Waxay khasaartay hal kulan oo kaliya ay la ciyaartay kooxda Horseed. Sidoo kale kooxda Horseed dhammaan kulamada wejiga hore ee ciyaartay waa ay guuleysatay, wejiga labaadna kulamada ay ciyaartay way guuleysatay. Kulanka Hegan wejiga labaad la ciyaari doonto maalinta Berito ayaana ka harsan. Haddii kooxda Horseed ay guul gaarto, waxay noqon doontaa kooxda hogaaminaysa horyaalka oo markoodii labaad ay difaacan doonto. Haddii laga adkaado ayaa cashir kale ayaa bilaaban doona oo labada kooxood u dhexeyn doona, kaasoo noqon doona in ciyaarta kama dambeysta lagu kala baxayo la ciyaari doono. Waa haddii ay Hegan badiso, kulan dheeri play-off ayaa la aadi doonaa. Laakiin haddii kooxda Horseed sidan ku guuleysato, waxay heli doontaa horyaalka ayay gacanta ku dhigi doontaa. Kooxda dhawaangalka kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya ee Dekedda, kulamadii ay soo ciyaartay tartanka CAF Confederation Cup ayaa guul ku soo furatay, iyadoona kulankii hore ay soo adkaatay, waxaana ay noqotay in kulankan ay ku soo baxdo farqiga goolasha iyo sidoo kale badiska ay hore u heshay, maadaama iyadoo ciyaartan laga adkaaday ayay soo baxday. Waxa ayna ka mid tahay kooxaha u soo gudbay wareegga xiga, waana markii ugu horeysay kooxda Dekedda ay soo gaarto tartankan muddo aad u fog oo taariikh ku leeyahay tartanka Bariga Afrika laga ciyaaro. Kooxda Dekedda ayaa iskaga soo hayaantay tartankan, waxay dib ugu soo laabatay dalka Soomaaliya,
waxa ayna qayb ka tahay kooxaha u soo baxay tartanka wareegga xiga, waxaana la sameyn doonaa isku aadkiisa. Waxay ku dhici doontaa kooxo kale oo markaasi tartankan u soo baxay. Kooxda Horseed ayaa sidoo kale iyadana markaasi ka hartay tartanka koobka labaad ee qaaradda Afrika ee kooxaha kaalinta labaad gala ayay soo macsalaameysay, iyadoona kulan ay bareejo gashay, kulanna laga adkaaday, ayayna qayb ka tahay tartanka ay labadan kooxood ciyaareen. Sidoo kale waxaa dhowaan bilaaban doona tartanka xiisaha badan ee koobka Janan Daawud ee kubadda cagta dalkeena Soomaaliya, iyagoona kooxahan ay markaasi isku diyaarin doonaan xilli ciyaareedkan soo socda. Waan arki doonaa sida rasmiga ah iyo sida kooxaha iskugu aadi doonaan tartanka Janan Daawud ee kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya, oo markaasi xiise gaar ah ku leh ciyaaraha kubadda cagta ee dalkeena.